بسم الله الرحمن الرحيم أصحابتي قالية maanta waxaan inii soo gudbin doonaa sheeko aad iyo aad u cajiib badan sheekadan oo ku saabsan wiil la oran jiray Cumar. wiilkan ayaa waxa uu arkay isaga oo keenta socda wiilkii ayuu caawiyay waxa uu soo gaaray magaaladii uu ku lahaa dhakhtarka waxaana ku imaaday isaga oo magaalada ku soo socda dad markuu uu dadkii ku yimid ayuu wuxuu soo qaatay ul qori ah usha uu ku soo socday markuu soo meel marayay ayuu wuxuu arkay wiil ku haya kaalay caawi wiilkii ayuu u tegay waxaana uu ku yiri soo fuul wiilkii ayaa soo fuulay waxa uuna ka waraystay meeshuu ka yimid waxa uuna ku yiri halkaas ayaan ku marayay wiilkii ayuu soo caawiyay markuu meesha wiilku soo fuushiyay ayuu haddana wuxuu arkay laba xayawaan oo dhibaataysan sidii wiilka oo kale Cumar ayaa wuxuu yiri waxaan soo badbaadinaynaa labada xayawaan wiilkii kale oo la oran jiray Cali ayaa wuxuu yiri naga daa labadan xayawaan waa laba xayawaan oo khatar ah naga dhaaf dhibaatadooda Cumar ayaa wuxuu yiri naga daa waa dhibanayaal wax uu soo saaray geeskii yarka uu saaranaa waxa uuna keenay beriga marka uu soo gaaray magaaladii ayay waxay labadii xayawaan u mahadceliyeen Cumar maadaama uu kasoo badbaadiyay khatartii weyneed ay ku jireen Cumar ayaa waxa uu yimid dhakhtarkiisii waxaan u imaaday macaamiil fara badan halka wiilkii kale oo yiri Cumar wiilkii Cali ahaa cidna wax ka gadan weysay Cumar ayaana dadka oo dhan waxay ka gadanayaan Cali ayaa waxa uu ku fikiray in uu Cumar kharajin doono magaaladana waxa ku badnaa tuugada boqorka ayaa waxa uu amray shaqaalayaashiisa in ay soo qabtaan qofkii soo qabta hal qof oo tuug ah waxaan la siin doonaa lacag Cali ayaa waxa uu soo galiyaa dukaankii Cumar dukaankiisa meel ka mid ah ayuu waxa uu gelinayaa bahal dahab ah waxa uuna u imaanayaa boqorka waxa uu ku dhahayaa boqorow waxa alaab iga haday wiilka halkaas dukaanka ku haysta oo lagu magacaabo Cali Cumar lagu magacaabo Cali ayaa waxa uu soo dirayaa askartii ayaa waxay baaraysaa dukaankii Cumar dukaankiisa Cumar ayaa waxa laga qabanayaa labada gacmood waxaana loo keenayaa boqorka marka loo keeno waxa uu dhahayaa iga kaxee oona ku xira halkaas yaana la soo bixin mar dambe markii la xiray Cumar waxa farxaya Cali waxa uu soo qaadanayaa lacagtiisa waxaana helayaa dad fara badan oo wax ka gata markaasi maska ayaa waxa uu imaanaya dawacada wax uuna ku dhahayaa dawacada ayaa wax ku dhahay maska ayay u soo diraysaa maski ayaa u imaanaya maski ayaa waxa uu ku dhahayaa Cumar annaga ayaan ku caawinaynaa haka walwalin dhibaatada aad ku jidna annaga ayaa ka saari doonaa markaasi Cumar ayaa wuxuu ku dhahayaa haye maska ayaa wax uu imaanaya dawacada ayaa waxay dhahaysaa qorshe ayaa noo hayaa qorshahaas oo ah waxa aan isku bedelayaa qof
si aan ugu tago boqorka. Waxa ayna soo saaraysaa wax sixir u eg. Markaas wixii sixirka u egaa ayaa waxa uu ku dhigayaa nin waayeel ah. Ninkii ayaa waxa uu imaanaya halkii iyo boqortooyada. Markaas maskii ayaa wax ugu soo qaadaya Cumar daawadaas ayuu wax ku dhahayaa daawadaas hayso way ku anfici doontaa. Cumar ayaa daawadii qaadanaya. Markuu qaato gabadhii uu dhalay boqorka ayaa waxay u soo baxaysaa duurduurka iyada oo socota. Maskii ayaa waxa uu imaanaya ugu soo dhuumanaya meeshii ay marisay gabadha. Markay ay gabadhii soo marto lugta ayuu ka qaniinaya gabadhii. Marka uu qaniino gabadhii ayaa qaninaysa. Waxaan la keenayaa qasrigii. Gabadhii ayaa waxaa soo burnaanaysa lugta. Gabadhii boqorkiina waa arrinka uu ka xun yahay. Waxa uu u baahday qof daaweyn kara gabadhiisa. Waxa uuna ku fikriyay in uu helo dhakhtar caawiya gabadhiisa. Waxaan imaanaya odaygii dawacada iska soo dhigay. Odaygii ayaa waxa uu dhahayaa la kulmaya boqorka ayaa wax uu sheegayaa arrinta haysata. Odayga ayaa waxa uu dhahayaa arrinkaas waxa sameyn kara hal qof. Qofkaas oo ah qof aad ku xirtay xaq darro. Boqorkii ayaa waxa uu u dhahayaa qof aan xaq darro ku xiray ma jiro. Boqorkii ayaa xasuusanaya in uu yahay wiilkii Cumar ahaa. Odayga ayaa u dhahayaa wiilkaas ayaa ka caawin kara. Odaygii ayaa fikiraya boqorkii ayaa fikiraya waxa uu ku fikirayaa in uu Cumar ahaa biil masaakiin ah. Waxa uuna askartiisa ku dhahayaa hala soo daayo wiilkii Cumar ahaa. Cali ayaana arrinkaas ku xun in la soo daayo Cumar. Markaas waxa fikiraya wiilkii Cali ahaa. Waxaana la soo saarayaa wiilkii Cumar ahaa. Waxaana la dhahayaa haddaad badbaadisid gabadheeda waana lagu sii deynayaa lacagna waa lagu siinayaa. Markuu arrinka maqlo waxa uu soo xasuusanayaa daawadii uu maska siiyay ayuu soo bixinayaa. Waxa uuna ku dhahayaa waatana daawadii daawo anaana siinaya gabadha. Waxaana soo ordaya wiilkii Cali ahaa isaga oo raba in uu ka baado. Waxa uuna xoog uga qaadayaa daawada isaga oo ka soo qaadaya ileen waana ka xoog weyn yahay. Cali ayaa daawada la soo ordaya. Markuu daawada saa u fiiriyo waxa uu ku dirayaa kiniiniyaal khaldan. Daawadii ayuu la soo ordayaa. Daawadii ayaa marka uu meel marayo daawadii ayaa ka daadanaysa. Waana ku naxaya arrinkaas. Daawadii ayaa markiisa u daadato waxay u ekaanaysaa sun. Boqorkii hadduu hal mar naxo ayuu soo istaagayaa. Waxa uuna dhahayaa ma daawadan sunta ah ayaad siin lahayd wariyaa gabadhayda. Markaas wiilkii Cali ahaa ayaa waxa uu dhahayaa waa ninkan ayaa sunta wuxuu rabay inuu siiyo gabadhaada isaga oo daawo uga dhigi lahaa. Boqorkii ayaa ka yaabay arrinkaas. Waxa uuna la yaabay labadan wiil kan khaldan. Wiilkii Cali ahaa ayaa wuxuu yiri boqorow daawadii waatana meel aan ku kariyo sii aniga keligay ayaa sameynaya meel aan ka kariyo sii. Boqorkii ayaa arrintaas wuxuu yiri waan ku siinayaa meel aad ku karisid daawada daawo sax ah soo maaha. Wiilkii ayaa wuxuu dhahayaa wiilkan Cumar ah waa wixiisu waa sun iska daa. Boqorkii ayaa waxa uu u yeeranayaa wiilkii Cumar ahaa. Wuxuuna dhahayaa waa kaas dab hadduu u shido ayuu dhahayaa samee. Wiilkii Cali ahaana waxaa la istaajinayaa meel ka fog. Daawadii markii uu dhameeyay waxaa loo yeeray nin ka mid ah dhakhtarada ugu waaweyn magaalada. Daawadii ayuu wax u keenayaa gabadha amiirada ah.
daawadii marka uu siiyo gabadhii nambarkii ayaa si kedis ah ku yaraanaya gabadhii ayaana sii fiicnaanaysa iyada oo indhihii kala qaaday nabarkiina maalmo ka bacdi waxa uu ku baaba'ayaa 3 beri meelahaas gabadhii markaas iyadoo faraxsan waxay u imaanaysaa aabaheed iyadoo u mahadcelinaysa wiilkii boqorkii iyo wiilkii oo isku faraxsan waxaa la keenayaa wiilkii Cali ahaa oo xirxiran isaga oo lagu eedeynayo in uu ka gardarnaa wiilkan Cumar ah una ahaa wiil masaakiin ah oo aan dambi iyo wax toona gelin Cali ayaa wuxuu cadeysanayaa wax walba uu wiilkan ku soo sameeyay Cumarna waxaa lagu xirayaa meeshii uu Cumar ku xirnaa ayaa lagu xirayaa wiilkii iyo gabadhii boqorka uu dhalayna iyagoo isjeclaadeen markay isjeclaadeen boqorkii ayaa ku farxay arrinkaas waana la isku guuriyay iyagoo isku faraxsan sheekadeennii asxaabay maanta intaas ayay noogu dhamaatay intaan ku kulmi doono sheekada mid la mid ah waxaan iiga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.